Isbitaalka gudaheeda nin la yiraahdo Simon ayaa si lama filaan ah ugu soo toosay sariir isbitaal isagoo aad u argagaxsan. Wuxuu bilaabay inuu wareero sababtoo ah ma xasuusanayn sida uu halkaas ku yimi. Dhakhtar la yiraahdo Newman ayaa isku dayay inuu dejiyo oo u sharaxay waxa dhacay habeenkii hore. Dhakhtarku wuxuu sheegay in paramedics ay Simon ka heleen bannaanka gurigiisa isagoo la ildaran gariir iyo xanuun caloosha ah. Waxaa la keenay isbitaalka halkaas oo dhakhaatiirtu ku qasbanaadeen inay ka saaraan waxyaabihii ku jiray calooshiisa si ay u badbaadiyaan. Newman wuxuu sidoo kale u sheegay Simon in caadi ahaan uu yahay dhakhtar carruurta daweeya, laakiin maadaama isbitaalka shaqaale yari ka jirto, uu ka caawinayo qaybta degdega ah. Si uu u dejiyo Simon, dhakhtarku wuxuu siiyey nacnac lollipop. Kadibna wuxuu u sheegay war aad u cabsi badan. Simon si farsamo ahaan ah wuu dhintay. Wadnihiisu wuu istaagay ku dhowaad 2 daqiiqo, laakiin dhakhaatiirta ayaa ugu dambayn ku guulaystay inay dib u soo celiyaan. Si uu u hubiyo xasuustiisa, Newman wuxuu weydiiyey Simon macluumaadkiisa gaarka ah. Simon si sahlan ayuu uga jawaabay su'aalaha sida magaciisa iyo xogtiisa kale. Laakiin markuu dhakhtarku weydiiyey taariikhda, Simon wuxuu ku jawaabay, waa sanadkii 2000. Dhakhtarka ayaa yaabay wuxuuna u sheegay in sanadka saxda ah yahay 2002. Kadibna wuxuu weydiiyey, magaca xaaskaaga waa maxay? Simon wuu wareeray. Wuxuu sheegay inuusan xaas lahayn. Laakiin Newman wuxuu u sheegay xaqiiqda. Simon wuxuu leeyahay xaas la yiraahdo Anna. Markaas Simon wuxuu bilaabay inuu xasuusto waxyaabo yar oo ku saabsan habeenkii shilka. Xusuusta habeenkaas. Simon wuxuu xasuustay inuu jiifay waddada roob daayo. Nin shaqaale isbitaal ah oo la yiraahdo Travis ayaa arkay oo badbaadiyey. Waxaa degdeg loogu qaaday isbitaalka halkaas oo dhakhaatiir badan ay ku hareereeyeen. Intii lagu guda jiray daaweynta, wadnihiisu si lama filaan ah ayuu u istaagay. Dhakhaatiirtu waxay bilaabeen cadaadis wadne chest compressions si ay dib ugu soo celiyaan garaaca wadnaha. Laakiin Simon wuxuu dareemay wax yaab leh. Wuxuu arkay ruuxdiisa oo ka baxday jidhkiisa iyadoo kor ka eegaysa dhakhaatiirta isku dayaya inay badbaadiyaan. Markii ay dhakhaatiirtu adeegsadeen defibrillator si ay wadnaha u garaacaan, ruuxdiisii si xoog leh ayaa loogu soo jiiday jidhkiisa mar kale. Saacado kadib, markii Simon ku dhowaa inuu soo tooso, wuxuu maqlay kalkaalisada Clayton oo la hadlaysay Newman. Clayton waxay tidhi, Simon waa la sumoobiyey, waa inaan arrintan u sheegnaa booliiska. Laakiin Newman wuxuu rabay inuu marka hore baaritaanno sameeyo ka hor inta aan arrinta la shaacin. Marka dib loogu noqdo wakhtiga hadda, Newman wuxuu sheegay in Simon uu qabo amnesia ku meel gaar ah. Taasi waxay ka dhigan tahay inuusan xasuusan karin 2 sano ee u dambeeyey ee noloshiisa. Dhakhtarku wuxuu u sheegay in xusuustiisu si tartiib ah u soo noqon karto. Laakiin Simon weli aad buu ula yaabay fikradda ah inuu xaas leeyahay. Haweeney qolkii soo gashay. Daqiiqada kadib, haweeney timo cad leh ayaa si degdeg ah u soo gashay qolka. Waxay ku booday Simon oo si adag u qabatay iyadoo faraxsan inuu nool yahay. Markay dhunkatay, Simon wax jawaab ah kama bixin. Haweeneydu waxay la yaabtay waxa qaldan. Simon si xishood leh ayuu u sharaxay inuu qabo dhibaato xusuus. Markay taas maqashay, haweeneydii aad bay u murugootay. Waxay tidhi, waxba iima harin hadda. Kadibna si degdeg ah ayay uga baxday qolka iyadoo ooyeysa. Simon wuxuu isku dayay inuu dabagalo, laakiin Travis iyo Newman ayaa joojiyey. Waxay u sheegeen, qofna qolka kama bixin. Simon wuu yaabay. Markuu Newman weydiiyey sababta uusan xaaskiisa uga